kulankani waa mid inta badan ugub ku ah bulshada Somaliland isla markaana maalmihii laga soo gudbay ka soconayay halkan waa mid kamid ah howlasha ka dhex binaysan xarunta guud wasaaradda beeruhu ku leedahay gudaha Hargeysa una dhexeeyo khubaro iyo sidoo kale aqoonyahanno si weyn ugu xeeldheer wax soo saarka dalagga beeraha laguna falanqeynayay sidii loo kobcin lahaa wax soo saarkaasi isla markaana looga hortagi lahaa in dalagyada kala duwan ee dadku quutaan ay noqdaan kuwa dalka dibaddiisa ka yimaada kuwaasoo saameyntooda taban ku yeelan kara bulshada dhinacyada dhaqaalaha iyo sidoo kale dhanka caafimaadka waxaana gunaanadkii kulanka ka soo qayb galay Madaxweyne Kuxigeenka Somaliland wasiirka horumarinta beeraha agaasimaha guud wasaaradda iyo sidoo kale xubno kamid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka Professor Ahmed oo kamid ah khubaradiis doodwadaha kulanka inta badan qayb lixaad ka qaatay ayaa halkaasi ku soo bandhigay warmurtiyeed ka soo baxay kulanka isla markaana aqoonyahanku isla garteen in haddii sidii la rabay loo dhaqan geliyo guulo hor laga gaari doono horumarinta dhanka wax soo saarka dalagga beeraha in la sameeyo wacyigelin dhinac walba haday wax soo saar noqoto haday wasaaradda la toosinayo oo dadka hurdee shaqaalaha fadhiya la kicinayo ma loo dhiibayo dhinac walba laba in la asteeyo dhulka ku haboon wax soo saarka gobol kasta ma aha gobolka okay tasaddex in wasaaraddu dejiso ansixiso qorshaha iyo nidaamka dhow ee beerashada afar dhammaan hay'adaha iyo cidda ku hawlan ka shaqaynta beeraha in ay raacaan qorshaha dhow ee wax soo saarka soona gudbiyaan qorshahooda dhow ee waxqabadka ee sanadka wasaaradda horumarinta beeruhu waa inay ku lamaanaysaa hay'adaha qof ka socda wasaaradda beeraha wasaaraddu xoojiso xiriirka wada shaqaynta gobolada beeraleyda sida bracket beeraleyda lana xoojiyo awoodda xafiisyada heer gobol iyo heer degmo ku xigta in la sameeyo biyo joojin xoogan lagu dhiirigeliyo ganacsatada maalgashi wax soo saarka beeraha dhankooda waxayguna halka ka hadlay xildhibaan Saciid Warsame Gaani oo kamid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Somaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud wasaaradda horumarinta beeraha Maxamed Cilmi Aadan Ilkaasi iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay kulanka waxaan rajaynayaa maadaama madaxweyne maalintii hore ku dhawaaqay in gobol walba uu 15% soo baxay qorshaheedii miisaaniyadeedina lagu daro oo ay dawladda cusub noqoto qorshaheed mid ay siiso siyaasad bajad la sameeyo siyaasadii bajadka oo ku beesgaraysan horumarka iyo wax soo saarkaas oo ay muhiimad ka siiso sheegi doonee ee waxa laga maarmaan in aynu sakaashino dhamaanteenba sidii aynu barnaamijka kolba qaybtii suurtagala dawlad hay'ad baayac mushtar iyo beeraleyba aynu ugu tala gali lahayn anu hadal badan ma kicino wasiirka kale muhiimad nuxurka oran doonee Ahmed Muumin Said wasiirka horumarinta beeraha ayaa dhankiisa isna halkaasi ka jeediyay ka xukuumadan ay ka go'an tahay taageerada iyo sidoo kale kobcinta dalagyada beeraha iyagoo tixraacaya qodobada ay ku galeen xilligii ololaha oo wasaaradahaan dareemaya ama ka dawladahaan la dareemaya in oo shacabka reer Somaliland oo dhan ay dareemayaan in wax soo saarka dalkeenu hooseeyo maxaa hooseeyay baa la isweydiiyay halka waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo runtii qaarna ay qaar marka horeba yaalay oo aan isweydiinay qaar cusub ay ku jiraan ka wasaaradahaan wasaaradda waxa jooga rag aad u khubara oo wanaagsan baan ugu imitay oo tiima oo u baahan in laakiin dadgelin la sameeyo la shaqeeyo inta aqoonta wasaaradda beeraha leh dibadda naga joogtayna noqon mayso kulankan Madaxweyne Kuxigeenka kulan maanta inta isku yimaadeen maskaxda ay tuujiyeen waxyaabaha halka ay ku soo qoreen oo qura ay ku koobnaanayso waxaan ka wasaaradahan waliba isku day doonaa kulamada noocan oo kala iyo in aanu xoojin doono ama aan bilo ka dhigno ama aan ka dhigno labadii weekba mare in aanu talo iskugu iman doono iyo kan waxaan ka rajayn doonaa inay gal xisaabtami doonaan qoraalkaas waxaan ka wasaaradahan fulinay iyo waxaan Abdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shirayseelay Madaxweyne Kuxigeenka Somaliland oo kulanka soo afbeeray ayaa dhankiisa tilmaamay in qodobadan sidooda loo dhaqan gelin doono isla markaana ka xukuumadaan dhankooda ay ka go'an tahay kobcinta dalagga beeraha iyagu ajita la taliyaasheen wax la taliyay yaa ka abuurmay la taliyaasha la sheegay wasaaradaha iyo madaxtooyada isku wada geed waxa noqotay wax iska qof lagu yarnaas muujinayo hebel oo yoom loogu amray la taliyay rasmiga gaari qofkii wax taraya waa ninka la taliyaa wasiirka oo hayay ama madaxweynaha oo hayay deena wax ku kordhin oo noqdo weeyaan laakiin saddex waxa naga noqday laba la taliyo oo saddex bilood iska qoray wasiirka laba maadeeriyo mar cadaalad oo maadeeriyo ku dhaafay jirayo hayo aqoonyahankeenu wax bartana
waxbarashada iyo sida Axmed sheegayo kuma soo celin dadkiisa in maanta dalku wax soo saarkii sida isku filaan lahaa oo gaaro ina fulino kolbay taalkeenu intuu la gaarsiiyo ina fulino oo maanta priority-ga la siiyo wax soo saarkeenu hadday miisaaniyad tahay iyo hadday fikir tahay iyo hadday dhaqaale tahay in hay'adaha wax soo saarka ina siino waan go'an tahay markii kulanku soo dhamaaday ayaa wax noo suura gashay in khubarada iyo sidoo kale aqoonyahanadii kulanka ka qayb galay oo ka soo kala socdaalay deegaano kala duwan aan aragtiyaan weydiino sida ay ula muuqato qarsoomidda kulankan iyo sidoo kale waxyaabaha ka soo baxay anigoo ah Maxamed Mahdi kana soo jeeda gobolada bariga oo siiba deegaanka Buuhoodle qurba joogana ah waxyaalihii aan wasiirkan iyo dawladdan ku amaanayo runtii waxa kamid ah inay priority number 1 ka dhigeen wax soo saarka dadku inay wax u lahaayeen hadaayay insha Allah la sii naaxin doono noqon doona furihii dalkan uu insha Allah ku gaari lahaa isku filaanshaha xagga cuntada waa mid xaqiiqada ku salaysan bay ahayd marka waxaan rubaysanahay inay wax badan tari karto laakiin hal la eego in fulinteedu ay suurta galayso oo maaragtay wasaaradda beeruhu ay fulin doonto iyo hay'adaha la xidhiidha ibaarta loo qabtay waxaan aaminsanay wixii la yiri waa la yiri laakiin waxa muhiim ah in hadda uu wixii la sheegay in la fuliyo baaqimiisa walba taasaan eeginaano kulankan oo qarsoomidiisu inta badan ugub ku ah deegaanada kala duwan ee Somaliland samarkana ku soo beegmay xilli si weyn baahi loogu qabay in laga wada tashado sidii loo kobcin lahaa dalagyada beeraha iyo wax soo saarka bulshada si looga maarmo khudaarta iyo sidoo kale raashinka kala duwan ee dalka dibadiisa xilligan ka yimaada ayaa hadii sida loogu talagalay u dhaqan galo noqon doona mid si weyn loogu amaano madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa hadda Somaliland ka arrimiya Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.